oo qofku markuu runta sheego oo run badan yahay waxa weeye runtu waxay ka soo muuqanaysaa jawaarixda iyo ficilada ayay ka soo muuqanaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin maalmaha kamid ah wuxuu la fariistay asxaabtii majlisu darsi waxa weeye waa majalistii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo asxaabta wax ku bari jiray hadhow ayaa macnawiyaadkoodii iyo shucuurkoodii iyo dareemadoodii ayaa bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu kor u qaado oo fadaa'ishii camalada fadaa'ishooda uga sheekeeyo su'aal buu weydiiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri man asbaha minkum al-yawma saa'iman yaa maanta ma garanaysaa soo waa baristay isagoo sooman waagu maanta ayuu ugu bariyay faqala Abu Bakr ana Abu Bakr ayaa wuxuu yiri aniga ayaa waa baristay anigoo sooman nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloo yiri faman tabi'a minkum al-yawma janazah maanta yaa janaasad raacay Abu Bakr ayaa farta taagay hadana wuxuu yiri aniga hadhow baa su'aashi nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sii watay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri faman ab'ama minkum al-yawma miskinan maanta yaa qof miskiin ah qodiyay Abu Bakr sidiisii uu ka caada dhigtay inuu fadaa'isha u tartamo maadaama uu runta sheego Abu Bakr ayaa wuxuu yiri aniga faman aada minkum al-yawma maridan nabiga sallallahu alayhi wasallam su'aashii ugu dambeeyay ayuu weydiiyay ee afraad uu ku yiri maanta yaa qof xanuunsanaya soo booqday Abu Bakr ayaa wuxuu yiri aniga nabiga sallallahu alayhi wasallam inta markuu weydiiyay ayaa wuxuu ku yiri majtama'at fi imri'in illa dakhala al-janna qof kuma kulanto afartan maalin kuma kulanto illa qofkaas wuxuu galaa jannada ayuu galaa marka waxa weeye u fiirso Abu Bakr Siddiq maadaama uu amarka ka run sheego maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay diintiisa uu ka run sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu ugu beegay mawaaqif xasana oo wanaagsan waxa ogaataa hadii aad diinta ku dhaqanto oo aad ka run sheegto Ilaahay subhanahu wa ta'ala boosas waaweyn oo fursadooyin ah inuu ku siin doono oo aad ka faa'iideysatid ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siin doonaa fursadahaas markaana fursadii weynaa ee soo maray Abu Bakr Siddiq ayay kamid ahayd afartan amal nabiga sallallahu alayhi wasallam uu weydiiyay markasta oo Abu Bakr Siddiq wuxuu lahaa aniga sameeyay sababtoo ah waxa dhaho ananiya ana waxa sameeyay meelaha kale oo dhan waa ku falxumo ama waa makruuh illa boosas kamida boosaskan ma ahaane illa boosaskan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu weydiinayo asxaabtii su'aasha oo boosaskan ay kamid tahay way banaan tahay qofku inuu dhaho ana waxa sameeyay laakiinse boosas kale ma banaana ina markastaba tiraahdo amalka ana sameeyay ana waxa sameeyay aniga midna noqotid waxa weeye waa wax laga wacan yahay oo wax falxun laakiin booskan maya oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u soo bandhigay asxaabtii su'aalo wuxuu doonayaa diintoodii iyo wuxuudii inuu baro markaana afartan waxyaabood waxa weeye aroortii inaad soontid taas way fududahay aroor inaad iska soontid taas way fududahay ee way soomi kartaa talabaadna waxa weeye in aad janaaso raacdo iyaduna ficiliyan way u fududahay laakiin si janaaso in la helo ayaa xoogaa way ka yara adag tahay hore oo ah ilma garanaysa aasoontid almuhim afraad saddexaadna waxa weeye in aad maskiin qoysid iyaduna way wanaagsan tahay iyaduna way fududahay afraadna waxa weeye in qof xanuunsanaya soo booqatid iyaduna way fududahay markana camaladan adigu xitaa way isku beegi kartaa oo deenin baa tahay ama qof magaalo ku nool magaalada waa laga dhiman karaa oo dad way ka dhiman karaan
markaana habeenkii marka qof laga dhinto dadka ama qof markuu habeenkii uu dhinto oo qofkiina la doonayo in aroortii loo soo aaso de waxaa sameynaysaa habeenkii marka aadid habeenkii markaa maqashid qof inuu dhintay aroortiiba dee soon iska niyeyso oo go'aanso inaad soontid sideena waa ku soontay dee meydkiina awalba waad ogeyd aroortii ayaa janaasadii raacaysaa qof maskiinana adigoo suuqa jooga ama adigoo ugu talagalayba oo markaas janaasadii raacay ilaan maskiinku meel kasta wuu joogayay ayaa siin kartaa sadaqo ama aad quudin kartaa ama aad quraacin kartaa waxaa soo hadhay qof xanuunsanaya ehelku wuu wada xanuunsanaya haddii aa ehelka ka weydinna dee qof baa iska weydiinaysaa qof ehelkiisa inuu ka xanuunsanayo ama baabaadhasa ama dhakhtarkaa aadaysaa qof xanuunsanaya ayaa soo booqanaysaa oo xoogaa yaroo hadiyadna u geynaysaa almuhim way fududahay in intaa la sameeyo weliba maalmo fara badan inaad fursadooyinkaa heshid way fududahay 100%. laakiinse qalbigu ilaahay subxaanahu watacaala u fududeeyo iyo qofku ilaahay u fududeeyo ayay u fududahay runta marka laga sheegaynayo waxaa la dhahaa asidqu maca allah waxa weeye waa waxa ugu fadliga badan ama waxa ugu weyn waxa weeye asidqu maca allah ilaahay subxaanahu watacaala ka run sheegtid ina ilaahay run u sheegtid ilaahay diintiisa iyo awaamirtiisa ina ka soo baxdid ina waxyaaluhu ilaahay subxaanahu watacaala ka reebay aad ka tagtid waxyaabahaas ina ka run sheegtid waa waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay subxaanahu watacaala uu qofku fadliga ku shiiyo ama qofku hadduu shay runa la imanayo waxa ugu weyn ina ilaahay subxaanahu watacaala diinta run u sheegtid laakiinse waxaa farxun ina bini'aadankana runlow noqotid oo bini'aadanka run u sheegtid ilaahay subxaanahu watacaala diintiisana ka been sheegtid laakiin ilaahay diintiisa hadaa ka run sheegtid bini'aadanka run baa u sheegaysaa sababtoo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa run u sheegtay laakiin bini'aadanka haddii aad run u sheegtid kama dhalanayso ina ilaahay subxaanahu watacaala run u sheegtid haddii ilaahay subxaanahu watacaala aad run u sheegi weydinna waxa weeye diintiisa ka run sheegi weydinna waxay badan tahay inaa wax kastaba aadan ka run sheegtid maxaa yeelay ciddii xaqa kugu lahayd xaqa ugu weyn cidda kugu lahayd kama soo bixin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa xaqa kugu weyn kugu leh xaqa kugu weyn ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kugu leh maadaama ilaahay xaqiisa siin weydid ilaahay subxaanahu watacaala uu jawaarixdaas iyo nafta iyo miisaanka iyo risqiga ku siiyey haddii aa xaqiisa gudi weydid waxa weeye cid kale run u sheegi maysid xaqoodana kasoo bixi maysid nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa abu hurayra ayaa weydiiyey su'aal wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam man as'adu nas bi shafaacatika ya shafaacadaada ugu nasiib badan maalinta yawm al-qiyaamah hal nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waan si garanay abu hurayra su'aasha inay weydiinaysid waxaan ku arkay sabab aan arkay ku dadaalayso cilmiga islaamka cilmiga barashada cilmiga iyo ma garanaysaa in axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam baratid ina wax kastaba ogaatid dadaal aad ku dadaalayso markaan arkay ayaan waxa ogaaday su'aalahaas oo kale inaan ciidan adiga ahayn inaan i weydiinin ayaan ogaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri man qaala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi qofkii la ilaha illa allah isagoo qalbigiisa u khaalis yeelaya oo ka run sheegaya oo in cid aan ilaahay subxaanahu watacaala ahayn qalbigiisa aan gelinayn kaas ayaa shafaacadayda xaq u leh markaan qofku waxan markuu khaalis u yahay waa mar uu ka run sheegayo sababtoo ah qofku qalbiga hadduu qofka jeclaado qofkaana uu ka jecel yahay qofkaas waa beentii runtii maaha uma qodon ku dhaho qalbigaadan ka jeclahay waa beentii qalbigiisa wax kale ayaa ku jira markaan qof qalbiga markuu adiga khaalis ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa uu yahay waxa weeye qofkaas waa ilaahay diintiisa ayuu ka run sheegay ina ilaahay subxaanahu watacaala ka run sheegtay diintiisa iyo xiriirkiisana waxa weeye markaad keligii diinta khaalis uga dhigtid runnimada ilaahay subxaanahu watacaala wataas laakiin haddii aadan keligii ilaahay subxaanahu watacaala diinta jacaylkeeda iyo inaad amarkiisa qaadato iyo inaad
ma garanaysaa diinta ku toosnaato iyo inaad jeclaato iyo inaad ilaahay bardo keligii haddii aad qofka la wadaajisid waxa weeye waa beenta diintiina waad kan bay sheegtay